shirkadda gayigeen ee Somtel Puntland ayaa macaamiisheeda ku nool guud ahaan Puntland u soo kordhisay fursad dahabi ah oo ay ka faa'iideysan karaan 10 casho ee soo socota taasoo ah anigay weydii Somtel waxa uu ku suuragelinayaa anigay weydii Somtel inaad si free ama bilaash ku hesho kaarka shirkadda Somtel xarumaheeda ku yaala guud ahaan Puntland anigay weydii Somtel waxa si free ama bilaash uga soo furan ka kaararka Somtel xarumaheeda waa kan maamulaha waaxda ganacsiga ee shirkadda Somtel Maxamed Cabdiraxmaan oo faahfaahin ka bixinaya anigay weydii Somtel bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 6 bisha Afraad 2024 waxaan halkan uga bashaareynaa macaamiisha shirkadda Somtel Puntland inaan u soo kordhinay adeeg la magac baxay aniga Somtel weydii adeegaas oo noqonaya in aanu ka dhignay kaararka Somtel inay yihiin bilaash oo qof kasto macaamiisheeda kamida uu kaarka Somtel uu ku heli karo si free ah dhammaan xarumaha Somtel meel kasta ay ku yaaliin laga bilaabo 7 bisha ilaa 16 bisha Afraad 2024 macaamiisheedu waxay ku heli karaan si free ah kaarka Somtel oo inaad isticmaashaa waxa ku fududaanaya inaad si fudud ugu adeegatid adeega e-dahab lacagtaadana ugu kaysatid meel walba sidoo kale inaad ku isticmaasho internetka ugu jaban uguna tayada sareeya guud ahaan Soomaaliya oo aad maaragtay meel walba oo Soomaaliya kamid ah ku isticmaali kartid sidoo kale inaad ku hadli kartid adeega dalmar oo ah adeeg $1 kuna wici kartid dhammaan Soomaaliya meel kasto aad qofka la xiriiraysa uu joogo oo haysta kaarka Somtel mar labaad iyo mar saddexaad macaamiisheeda waxaan leenahay waa idinka mahadcelinayaa inaad tihiin macaamiisheeda laga bilaabo bari oo bishu tahay 7 macaamiisheeda xarumo waa idin furan yihiin kaararkiina waxaad ku heleysaan si free ah oo bilaasha waxaan rajeynaynaa adeega 10 casho aad ka faa'iideysan doontaan aadna isticmaali doontaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel